madaxweyne muuse biixi ayaa intuu khudbadeynayay waxa uu soo hadal qaaday dibudhaca doorashooyinka ee Soomaaliland iyo waliba wadahadalada Soomaaliland Soomaaliya oo uu sheegay markii ugu horeysay inuu ka furmayso dalka Ghana tiitu kow baa inoo taala baarlamaankeenu sheegto uu jooga waa la doortaa guurtii waa dhaxlay dimuqraadiyadda soo qabtaan waa in la doortaa dawladda hoose iyaguna way muddo dhaaf intaas oo la isugu yeedho kun qof ay doonayaan dooran tii horena xanuunkeedu waa nahay iyo xanafteed waxaan u baahanahay waa balaayo loo baahan yahay waa wada aynu jeexanay meel aynu uga wareegna male si kale oo xukuno garan mayno waxaan shantii sano golaasha aan dooran dhaqaalaha inaga daran ay leedahay hawsh amniga soo khalkhalisa ka daran ciidamada soo daalanaysa ka daran laakiin haddii aynaan iyadii ku soconay la inaga dooranay sababna soo xukumayna marka waxa ay leedahay taan oo diyaar garoobina waana waa isku tageynaa iyo inaan dhahro war wax waa campaign oo turbo la ciyaarayay iyana colaad ka dhigin ninna qabkiisa wax la yeeli maayay tii hore shacbiga codka bixiyay ee saddex xisbi oo xisbiga aad u xanaaqay wadana oo ahaa shacabkiisii waa ka soo bogsanay waa u tagay arode qoladii xisbiga doorashada heshay ahaa madaxweynaha waajibka ayaga saaraa inaan walba gurigiisa ugu tago inaan dhaho walaalow maxaa tabanaysaa walaalow waxa la rabaa inaan meesha dalka wadaaleena waxa tabanaysaa aan qaban karayna aad sheegto wixii dee dhacay qadarihii ina dhaafayna berita waa iman doontaa aynu baranadee bahashaanu baranay tiradan aynaan garanayno sida teenu hore ka duwan runtii dadweynuhu codeeyay xisbiga wadani oo degmooyinka ay ku xoog waaweyn iyo gobolada ay ku xoog waaweyn oo dhan aan wada maray waxa la iga soo dhaweeyay oo la iga kaftamay oo la iga niyad wanaagsanaa si aan la iga soo dhaweyn Hargeysa iyo Gabiley iyo Burco Gabiley arinta waa lagu jiraa waxa soo dhex gashay meesha qolada Switzerland telefoon ma nagu hadlay waa ogolaaday isna wuxuu waa ogolahay waraaq bay soo direen waa 8 bilood ka hor mid waraqada noo saxay kalsoonida arinta idin gogol waa saxay waa diiday isuulan baa soo gashay safiirka arrimaha dibadda soo hadlay intii la guul warqadu waa saxiix afkii ka aqbalay waa saxiix waay ilaa imkay taagantay waxa yimid South Africa ahaa wuxuu ka bilaabay halada dhexdhexaadiye xageebaa doonaysa isagu mar walba iyagu waxay sheegtaan Ankara iyo Dooxa wuxuu waxaan geynaa Johannesburg waa ogol isagii baa lagu weeriyay hadda cishadooda waxay boorwan oo ka sheegay Turkiga warkaliga ku aqbalay meeyne caalamku kala soo dhex galo wuu aqbalay warqad soo celiyay hadda Ingiriiska Mareykanka EU Afrika baashan Yurub ka soo tagtay Sweden inta wuxuu ka codsaday in la isugu yimaado bisha 19keeda meesha la Ghana Accra si loo sameeyo guddi caalami ah oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhex gashay waxa waara in xamar iyo inta la joogtaa wax ka dagaalamaya walaal waxay mahayn hadaynu Soomaaliland nahay war aan garano oo inaan isku dhiman xabad inaga daa aan wada hadal